Bismillah, asalaamu calaykum waraxma. Muuqaalkii hore waxaan uga soo hadalnay barnaamijka Anki oo aan si guud ahaaneed u soo taabanay adeegyada uu leeyahay iyo qaababka loo isticmaalo. Muuqaalkan waxaan doonayaa inaan uga hadlo arrin aad iyo aad muhiim u ah ka hor inta aynaan gudagelin taxanaha barnaamijka. Muuqaalkani wuxuu aasaas u yahay dhammaan taxanayaasha soo socda ee aan uga hadli doono barnaamijka Anki, wuxuuna ku saleysan yahay afeef. Saddexdan qodob waa saddexda qodob ee aan doonayo in la fahmo ka hor inta aynaan gudagelin taxanaha barnaamijkaas. Qodobka ugu horeeya wuxuu leeyahay qofba qofka uu ka adeegsi badan yahay Anki waa uu ka waaya aragnimo badan yahay. Qodobka labaad, markii laga hadlayo qaababka kala duwan ee loo adeegsado Anki, waxaa jira xagga dooqa marka ay noqoto ilaa iyo 2 dooqood: dooq guud ahaaneed iyo mid gaar ahaaneed, general preference iyo personal preference. Qodobka saddexaadna wuxuu leeyahay kullama adeegsiga Anki aad badsato ilaa iyo waqti dheer, bilooyin ilaa iyo sanadooyin iyo wixii kale ka badanba, waa kullama oo aad si fiican u garan karto settingkiska kugu habboon ama settingkiska kugu fiican ee kugu habboon shakhsiyad ahaantaada. Saddexdaas qodob baan doonayaa inaan isdul taago. Haddaan ka bilaabo qodobka ugu horeeya, wuxuu leeyahay qofba qofka uu ka adeegsi badan yahay barnaamijkan Anki waa uu ka waaya aragnimo badan yahay. Taa maxaan uga jeedaa? Qodobkaasna maxaan u soo qaatay? Qofba qofka uu kaga horeeyay isticmaalka ama adeegsiga barnaamijka Anki waa uu ka waaya aragnimo badan yahay, macnaha waa uu kaga aqoon badan yahay. Qodobkan waxaan u soo qaatay, waxaan doonayaa in haddii aad aragto qof kaaga horeeyay adeegsiga barnaamijkan, inaad garwaaqsato inuu qofkaasi wax badan ka ogsoon yahay, isla markaasina ay tahay inaad taladiisa qaadato. Wixii uu kugula taliyo inaad qaadato ood ku dhaqantona ay muhiim tahay. Tusaale ahaan, haddii imika adigu aad tahay qof barnaamijkan ku cusub, waxaan dhihi karaa anigu waan kaaga soo horeeyay, sidaa awgeed taladii aan ku siiyo barnaamijkan aan kaa siiyo waxa wanaagsan inaad qaadato. Sidaas oo kale anigana dad baa iiga horeeyay adeegsiga barnaamijkan, oo dadkaasu taladay bixiyaan waxaa waajib igu ah inaan qaato oo aan ku dhaqmo, maxaa yeelay way iiga aqoon badan yihiin, waana iiga waaya aragsan yihiin. Marka qodobkaas saasaan u soo qaatay. Qodobka labaad wuxuu leeyahay markii laga hadlayo qaababka kala duwan ee loo adeegsado Anki, waxaa jira 2 dooqood baa jira: dooq guud ahaaneed iyo mid gaar ahaaneed. Waxaan ognahay barnaamijka Anki wuxuu bixiyaa ama waxaa laga helaa adeegyo badan. Adeegyadaasi waxay isugu jiraan qaar si siman oo si isku mid ah loo isticmaalo ugu badnaan, iyo qaar lagu kala aragti duwan yahay oo waxay ku xidhan tahay shakhsiyadda iyo dadku isku wada maskax maaha. Waxay ku xidhan tahay shakhsiyadda dadka ayay ku xidhan tahay, oo waa lagu kala aragti duwan yahay, oo markaa waxaan leenahay waa dooq gaar ahaaneed. Tusaale ayaan soo qaadanaynaa si aan u fahmno waxaan aan uga jeedo dooq guud ahaaneed iyo dooq gaar ahaaneed. Haddii matalan makhaayad ama hodheel ama maqaaxi aad soo gasho, hodheelka ama makhaayadda waxaa yaalla kuraas ama fadhi ayaa yaalla. Kuraasta meesha taalla makhaayadda ayaa iska leh, oo dadku si isku mid ah ayay ugu wada fadhiistaan, yar iyo weyn labadaba. Shayga keliya ee ay ku kala duwanaan karaan waxa weeye cuntada ay dalbanayaan, oo isku mid maaha cunto uu qof yari cunayo, cunto qof dhexdhexaad ah cunayo, iyo cunto uu cunayo qof da' weyn. Isku cunto ma cunaan. Marka
Ee halkaaba markii laga yimaado waxaa laga yaabaa laba qof oo walaalo ah oo isla socota inay kala cunto dalbadaan. Marka waxaan uga jeedaa Anki wuxuu leeyahay adeegyo ama agabyo. Agabyadaas laba noocood waaye. Nooc waa si siman ayaa maaragtay loo isticmaalaa oo dadku way ka siman yihiin si isku mid ay u isticmaalaan oo ugu badnaan qaab isku mid ah ayay u adeegsadaan. Noocna waa nooc lagu kala aragti duwan yahay oo waxay ku xiran tahay shakhsiyadda qofka ayay ku xiran tahay. Qodobkaasina saasuu noqonayaa markaa. Qodobka saddexaad waxa weeye ay tahay inaan isla afgarano ka hor inta aynaan bilaabin taxanaha barnaamijkan. Kullama adeegsiga Anki aad badsato ilaa iyo waqti dheer, bilooyin, sanadooyin iyo wixii kale ee kor u sii dhaafsiisan, kullama adeegsigiisa aad badsato waa kullama oo si fiican aad u garato ama aad u soo saaran karto settingskii kugu habboonaa ama settingskii kugu fiicnaa ee shakhsiyad ahaantaada aad isticmaali lahayd. Yacni waxaa la arkaa settings waxay ka dhigan tahay waa waxyaabaha shookaanta u sida ama waxyaabaha dhaqaajiya barnaamijka. Marka waa lagu kala aragti duwan yahay. Si marka adiga settings kugu habboon aad u soo saarato, waxaa khasab ah inaad maaragtay barnaamijka aad ku falaado ood in muddo ah isticmaasho si aad u kala garato wixii kuu roon iyo wixii kale. Marka dabeecadaha uu leeyahay barnaamijkan waxaa ka mid ah inay waqti kaaga xiran tahay. Waxay kaaga xiran tahay waqti dheer inaad maaragtay barnaamijkan isticmaalkiisa aad sii wadato si aad waxyaabo fara badan u ogaato. Saddexdaas qodob waa saddex qodob oo aasaas u ah guud ahaan taxanayaasha barnaamijkan. Muuqaalkan inta ka harsan waxaan ka hadlaynaa oo aan isdul taagaynaa qodobkaas labaad, labadiisa qodob ee kala ah dooq guud ahaaneed iyo dooq gaar ahaaneed. Maxaa la dhihi karaa waa dooq guud ahaaneed? Maxaase la dhihi karaa waa dooq gaar ahaaneed? Waxyaabahaas oo kala hoos gala mid kasta ayaan rabnaa inaan ka hadalno. Laakiin dooq guud ahaaneed ama general preference kama hadli doono sababtoo ah waxaa nooga filan ama nooga filnaan doona inaan ka hadalno dooq gaar ahaaneed oo keliya. Mar haddii aan tilmaamno waxyaabaha soo hoosgala dooqyada gaarka ah, inta soo hadhay way iska caddahay inay aadi doonto ama in lagu tirin doono dooqyo guud ahaaneed. Marka waxaan xoogga saaraynaa oo keliya inaan wax ka tilmaamno dooqyada gaar ahaaneed ama personal preference. Sidaan markii hore soo sheegnay, sababta aan u dhahnay dooq guud iyo dooq gaar ah waxaan ku tilmaamnay dooqyada guud waa adeegyada laga wada siman yahay sida wadajirka leh ama sida siman loo wada isticmaalo. Dooqyada gaarka ahna waa kuwa lagu kala aragtida duwan yahay, taasoo ay ugu wacan tahay kala duwanaanshiyaha shakhsiyadda dadka iyo maskaxdooda. Marka dooqyada gaar ahaaneed waxay ka dhigan tahay waa kuwa lagu kala aragtida duwan yahay. Laba loo kala qaybinaya marka laba u kala saaraynaa. Dooqyada gaarka ah ayaga laftirkooda waxaan u kala saaraynaa laba qaybood ama laba noocood. Nooc wuxuu ku saleysan yahay settingska oo halkaasaa la aadayaa. Noocna kuma saleysna oo meel kale ayuu aadayaa waa arkaynaa. Marka waa qaar ku saleysan qodobo dhowr ah oo la isku wada yiraahdo algorithm oo ka dhigan dabcan settings based, iyo qaar aan ku saleysnayn algorithmka oo aan leenahay marka waa non settings based. Mid kasta waan ka hadlaynaa insha Allah. Dooqyada gaarka ah ama dooqyada gaar ahaaneed noociisa ku saleysan algorithmka ama settingska ku saleysan waa qodobkii koowaad.
waxyaabaha ugu muhiimsan ama qodobada ugu muhiimsan waa ilaa iyo qodobadan hadda meesha nooga muuqda oo ay ka mid yihiin new cards per day value, review cards per day value, learning steps values, graduating interval value, lapse settings, interval modifier iyo Barry related cards option. Marka toddobadan qodob waa toddobada qodob ee ugu muhiimsan uguna tunka weyn marka ay noqoto dooqyada gaarka ah, waana qaybta settingska marka ay tahay. Waa lagu kala aragti duwan yahay toddobadan qodob. Mid kasta oo ka mid ah toddobadaasi qodobna muuqaalada soo socda insha allahu waa ku faahfaahin doonaa. Nooca labaad baan gelinaa oo dooqyada gaarka ah lagu kala gedisan yahay. Noocani kuma salaysna algorithmka oo waxaan leenahay waa non settings based. Su'aalahan bay noqonaysaa marka in laga jawaabo ama la isweydiiyo. Waana waxyaabaha lagu kala aragtida duwan yahay. Su'aasha ugu horeyso kale, what kind of contents do you want to study in Anki? Xog noocee ah ayaad doonaysaa inaad ku barato ama inaad ku isticmaasho barnaamijka Anki? Waxay ku xiran tahay ardaygu waxa uu baranayo. Haddii ardaygu yahay arday caafimaadka barta, dabcan xogta uu barnaamijkan ku adeegsanayo waa maadooyin caafimaadka ku salaysan. Haddii ardaygu yahay arday barta injineeriyadda, xogta uu barnaamijkan ku adeegsanayo ama casharada uu ku adeegsanayo waa casharo khuseeya injineeriyadda. Haddii uu doonayo qofku inuu luuqado iska barto, xogta uu barnaamijka ku adeegsanayo waa luuqado. Marka waxay ku xiran tahay contentska, macnaha xogta ay tahay inuu ardaygu barnaamijka ku adeegsado waa lagu kala aragti duwan yahay. Marka ujeedooyinka loo adeegsanayo Anki waa lagu kala aragti duwan yahay. Waxaa kaloo lagu kala aragti duwan yahay su'aashan kale ah, how do you want to be the makeup of your questions? Make-upka ama naqshadda ay u samaysan tahay su'aashu sidee baad ugu baahan tahay inay noqoto? Sidee baad u doonaysaa? Sidee baad la damacsan tahay inay ahaato? Make-upka ama qaabka ay su'aashu u samaysan tahay waxaan dhihi karnaa ma su'aalo sawirro wataa oo miidiyay wataan miya? Sida cod, sawirro, muuqaallo clips ah may wataan mise waa qaar aan wadanin weeye. Sidoo kale naqshadda flashcardka loo sameeyo iyana waa lagu kala aragti duwan yahay. Oo flashcardsku way kala naqshado duwan yihiin. Oo waxaa jira flashcard noociisu yahay ama naqshadiisu tahay close, flashcard naqshadiisu tahay basic, flashcard naqshadiisu ay tahay reversed. Marka midkee baad jeceshahay inaad markaa isticmaasho? Naqshadee iyana waa lagu kala gedisan yahay. Waan ka hadli doonaa. Su'aasha kale ay tahay in la isweydiiyo waxa weeye, what is the right time to make flashcard questions into Anki? Waqtiga dhabta ah ama waqtiyada ugu habboon ee ay tahay inaad samaysato flashcard questions, inaad casharo gashato, inaad su'aalo iyo jawaabo aad gashato, waqtigee ayaa ku habboon inaad sidaas u samaysato? Ilaa waxaa laga yaabaa inaad iskuul dhigato ama se aad jaamacad dhigato oo duruustaadiiba ay kaa badan tahay. Jadwalkaagina waxaa laga yaabaa inuu buuxo. Marka ma u haysaa boos iyo waqti barnaamijka Anki aad la qaadato si aad u samaysato flashcards oo su'aalo iyo jawaabo ah casharkaaga aad uga samaysato? Ma u haysaa? Waqtigee bay kula tahay adiga inaad samaysan karto flashcard questions? Iyana waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu kala aragtida duwan yahay. Sidoo kale waxaa kaloo jira waqtiga ay tahay inaad fiiriso ama inaad daalacato wixii aad ku xareysay barnaamijkan. Su'aalihii jawaabihii aad ku xareysay, ilaa barnaamijku waa barnaamij wax lagu barto
waa barnaamij ku saleysan repetition, inaad wax ku celceliso oo su'aalihii iyo jawaabihii meesha aad ku xareysatay ayaad laylinaysaa ama aad practice garaynaysaa. Marka qodobkan wuxuu ka mid yahay qodobada lagu kala aragtida duwan yahay. Xilliga saxda ah ee uu qofku daalacan karo wixii uu gashaday ee uu meesha ku xareystay iyana waxay ka mid tahay waxyaabaha la isweydiiyay ka mid tahay oo maaragtay lagu kala aragtida duwan yahay ahna dooqyada gaarka ah. Qodobka kale ee ay tahay in la isweydiiyo ama lagu kala aragtida duwan yahay waxa weeye ma isticmaashaa option-ka la yiraahdo gestures oo ah qaabka yacni loo hago jawaabtii aad ka jawaabtay oo systemka aad yacni markii hore waxay ahayd buttons-ka inaad taabato hard, easy, again iyo good. Afartaas button ayaa jira. Su'aasha marka ay ku saaran tahay meesha oo aad ka fikirayso oo aad active recall sameyso kadibna aad show answer tiraahdo waxaa lagu soo saarayaa buttonski taasoo ka dhigan systemka waa inaad u sheegtaa qaabkii su'aashu ay kuula ekayd ee aad uga jawaabtay. Miyay fududayd mise way adkayd? Ma dhexdhexaad bay ahayd mise waad ku rafatay? Macnaha halkii buttonska marka aad dul taaban lahayd waxaad isticmaalaysaa shaashadaada oo marna waxaad u weecinaysaa midigta marna waxaad u weecinaysaa bidixda marna 2 jeer baad taabanaysaa. Yacni markastoo aad maaragtay dhinac u weeciso ama aad taabato systemka waxaad u sheegaysaa inuu ku taabto button hebel adigoo aan taabanin buttonska dabcan adigoo aan faraha la aadin buttonska ayaad shaashada ka maamuli kartaa. Marka gestures waa kaasa waana muxuu ahaa adeeg ma garanaysaa aan saas u xoog badnayn isticmaalkiisu laakiin saas ay tahay waa lagu kala aragti duwan yahay. Dadka qaar way isticmaalaan dadka qaarna ma isticmaalaan. Qodobka ugu dambeeya ee lagu kala aragtida duwan yahay waxa weeye do you prefer to use completely pre-made decks, completely owned decks, or partially pre-made decks and partially owned decks together? Qodobkani wuxuu koobsanayaa ama uu tilmaamayaa 3 qodob oo kala duwan waana qodobada wuxuu ka mid yahay qodobada lagu kala aragtida duwan yahay ee soo hoosgala dooqyada gaar ahaaneed gaar ahaan kuwa aan ku salaysnayn settingska aan ku salaysnayn weeye dabcan. Marka waa 3 qodob waaye completely pre-made decks oo dhinac ah, completely owned decks oo dhinac kale ah iyo partially pre-made decks and partially owned decks together oo dhinac kaleeta ah. Marka inta aynan sharxin ka hor waxa looga jeedo waxyaabahan waxa wanaagsan inaan isla afgarano wax la yiraahdo pre-made iyo owned sida meesha nooga muuqata. Decksku ama khaanaduhu iyadoo loo fiirinayo xogta ku jirta cidda iska leh cidda samaysay su'aalahaas meesha ku shubtay iyadoo loo fiirinayo waa 2 noocood ama waa pre-made oo cid kala samaysay xogta ku jirta khaanadaas oo su'aalaha iyo jawaabaha ah ama waa own oo adiga iska leh casharada ku jira khaanadaas. Khaanada la yiraahdo own-ka waa khaanad ay ku jiraan casharo adigu aad iska leedahay macnaha waa casharo ku khuseeya oo goobtaada waxbarasho muqarrarkaaga ku salaysan weeye. Kan kaleetana waa pre-made oo waa mid hore loo sameeyey. Marka haddaan eray bixin u raadiyo waxaan dhihi lahaa waa shisheeye iyo sokeeye oo kale. Pre-made-ku waa shisheeye oo dad kala sameeyey midka own-ka ah own deckskuna waxa weeyaan waa deckska ama khaanadaha sokeeyaha ah oo dabcan waxaan uga jeedaa ku salaysan muqarrarka ku salaysan xogta ku jirta oo ah su'aalo iyo jawaabo waxaa laga soo dhex saaray muqarrarkaaga ayaad ka soo dhex saartay. Marka completely owned decks miyuu qofku isticmaalayaa completely pre-made decks miyuu isticmaalayaa mise waa isku jir ayuu isticmaalayaa iyagoo la isku daray macnaha kana wuu isticmaalaa kana wuu isticmaalaa. Iyana waa lagu kala aragti duwan yahay inuu qofku pre-made decks oo khali ah uu isticmaalo si dhammaystiran
uu ku tiirsanaado, maya inuu isticmaalo qaar muqarrarkiisa ku saleysan oo own ah oo keliya inuu isticmaalo, maya inuu maaragtay isku daro oo kanna wuu isticmaalaa, kanna wuu isticmaalaa, labadaba markaa wuu isticmaalaa, wuu adeegsadaa. Marka iyana waa lagu kala aragti duwan yahay. Dadka qaar waxaad arkaysaa waxay isticmaalaan brimeidka oo nadiif ah oo keliya. Dadka qaar waxaad arkaysaa waxay isticmaalaan wixii own ah oo keliya oo maaragtay khaanado iyagu ay samaysteen casharadooda ku saleysan oo keliya isticmaalaan. Dadka qaarna waxa weeyaan waxay isticmaalaan isku jir oo labadaba ah. Brimeidkana waa ay soo degsadaan oo maaragtay way isticmaalaan. Ownkana maaragtay way samaystaan oo way isticmaalaan. Marka saddexdaasna waa saddexda qodob ee lagu kala aragtida duwan yahay ayuu qodobkaasina tilmaamayaa. Marka waxaan rajeynayaa inaad kala garatay waxyaabaha looga jeedo dooq guud ahaaneed iyo waxyaabaha looga jeedo dooq gaar ahaaneed, iyo qodobada soo kala hoos gala mid kasta. Waxaan sheegnay dooqyada guud ahaaneed kama hadlayno, sababtoo ah waxaa nooga filan inaan ka hadalno oo keliya dooqyada gaar ahaaneed. Markaan wax ka tilmaamnay dooqyadii gaar ahaaneed sida haddeertaan aan u dhignay, waxaa caddaatay wixii dooqyo gaar ahaaneed ah iyo wixii dooqyo guud ahaaneed ah oo ah inta ka soo hartay dooqyada gaar ahaaneed. Muuqaalkii hore waxaan kusoo qaadanay dulmar guud ama guudmar ku saabsan barnaamijkii Anki oo aan kusoo sixaynay settings fara badan. Settingskii aan kusoo sixaynay waxay u badnaayeen general preference ama dooqyo guud bay u badnaayeen, waxyaabo macnaha laga wada siman yahay ayay u badnaayeen. Marka saddexdan qodob ee afeefta ah waa saddexda qodob ee ay tahay inaad ku xisaabtanto guud ahaan taxanayaasha soo socda ee maaragtay barnaamijkan aan uga hadlaynana iyaga ayay maaragtay u soo laaban doonaan oo maaragtay aasaas u ah. Dooqyada gaar ahaaneed waxaan soo tilmaamnay ama personal preference-ga waxaan soo sheegnay inay waqti kugu qaadanayso sida qodobka saddexaad uu sheegayo. Bilooyin sanadooyin baa laga yaabaa inay kugu qaadato sidii aad ku soo saaran lahayd settings kugu habboon oo aad ku shaqeyn karto. Laakiin ma sugi kartid intaasoo muddo ah oo waxaad doonaysaa inaad isticmaasho barnaamijka. Marka way fiican tahay marka in aad qaadato talooyin ay tahay inay maaragtay ku siiyaan dadka maaragtay kaaga horeeya adeegsi ahaan barnaamijka oo maaragtay kaaga waayo aragsan. Waana sababta aan u doonayo muuqaalka xiga iyo muuqaalada kale ee iyaguna taxanaha ah inaan ku soo gudbiyo talooyin aan kaa siiyo inta aad ka soo saaranayso dooqyadaasi gaarka ah ee adiga loo baahan yahay inaad soo saarato. Waxaa kaloo xusid mudan, waxaa jira erey aan soo celceliyey oo maaragtay la yiraahdo algorithm magaciisa. Algorithm-ku waa habdhaqanka uu barnaamijka Anki u dhaqmo iyo siduu u shaqeeyo. Waa koox settings ah oo hal mar wada shaqeysa isla markaana meelaysa su'aashan meesha loo dirayo iyo safarka loo dirayo. Waxaad aragtay buttonska again, good iyo hard inay ku kala xusan yihiin waqti 2 minute, 10 minute, 4 days. Waxyaabahaas si ay u shaqeeyaan ayuu algorithm-ku maaragtay ku lug leeyahay. Muuqaal gaar aan ka sameynayna insha Allah. Muuqaalkan halkaas uu ku egyahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi.